madax dhaqameed ay kamid ahaayeen boqor maxamed axmed deere boqor maxamed nuux jiif caaqil axmed maxamed kulli iyo boqor maxamed cismaan nuur oo maanta qaar kamid ah warbaahinta kula hadlayay gudaha magaalada Ceerigaabo ayaa ugu horeynba ka hadlay xaaladda nabadgelyo gobolka Sanaag iyagoona sheegay in gobolka xaaladiisa amaan ay haatan wanaagsan tahay isla markaasina aan loo baahnayn in la carqaladeeyo horumarka iyo nabadgelyada ka jirta gobolka iyagoona arrimahaas iyo arrimo kale ka hadlayana waxa hadaladoodii kamid ahaa kan jaraayadaanu maanta qabanay waxaan rabnaa in aan u qabanay inaynu cadeyno mowqifka aanu ka taaganahay xagga nabadgelyada gobolka ruuxantii nabadgelyadu cid walba wawdan qof walibana waa u baahan yahay waa tan lagu nool yahay nabadgelyo la'aan lama noolaan karo sidaa darteed markaa waxa jira bariyaha waxbayna soo galay aan hore u jirin baa soo galay gobolka gawaari la baxsado iyo waxa hawshaasina waxay dhaawac ku keentay weyn adeegii bulshada ninbaa gabiyo wuxuu yidhi nuxnuxda iyo naxdiga beenta iyo nuqulka shaydaanka warnaba miyuu sheegay baa nacasku raacay ansar nadartu waxaan soo arkay baa nacam idhaahda halka reer Ceerigaabo xanta yaqaan laakiin hayna nabadgelyo cad baan gobolka u hayna ummadana ugu baqay dadka mas'uulka aanu ka nahay waxaan nabadgelyo cad baan hayna cidii eedaa sameysana dawladdu tallaabo inay ka qaaday xaq u leedahay hadlayno arrimaha nabadgelyada gobolka Sanaag oo bariyahan dambe aad moodo in ay dhex gashay hadal jiro iyo tuhun waxaan si cad u sheegaynaa inaan diyaar u nahay nabadgelyada wax kasta oo ay ku kacayso shaqada aanu haynay koowaadna ay tahay nabadgelyadu haddii madow galay maanta aanu cadaynaynaa nabadgelyo aanu diyaar u nahay qiimaha ay ku kacaysana waanu ku bixinaynaa hadday geeri gaadhayso taas waan tahay naftayada cidii ay madow kaga jirtayna waxaanu leenahay fahmi makeen nabadgelyo waa diyaar bay naga tahay cidii ka shaqeynaysa diyaar baan u nahay dadka waxaanu ugu baaqaynaa reer Sanaag inay nabadgelyada ka wada shaqeeyaan guud ahaantood runtii sida la sheegay waxaanu haynaa nabadgelyo gobolku iyo shacabkaba waxaanu ugu baaqaynaa waa nabadgelyo anagu waxaan la buunbuuninayo ee gobolka laga sheegayo ee media la soo fariisanayo ee xukuumadda la gaarsiinayo ee leeyahay waxba ragmaday waxba kama jira baalleer dadka waxa shubaya waa dadka xukuuma caasha gobolka xaaladiisu waa degada dawladdu oo ka waraysa xaaladaha soo kordhay ee laga hadlay runtii anagu raali la kaba nihiin haddana waxaan ugu baaqaynaa cid kasta inay hawsha joojiso oo wixii dhaawac inagu keenaya horumarkeena iyo gobolka dhamaan iyo degmadaba dhaawac ku keenaya waxaan ugu baaqaynaa inay laga joogo dhalinyarada waxaan ugu baaqaynaa inay istijiyaan inay nabadgelyada ka shaqeeyaan inay isku xidhnaadaan inay horumarkeena iyo danteena ka shaqeyno leenahay shacabka gobolka nabadgelyada hal laga shaqeeyo wixii dib wadana hal iska qabto nabadgelyadu waa inoo dan ka wax baranaya ka ganacsanaya ka caafimaad doonaya intaba nabadgelyada u dana masaajidada la tagi maayo hadii nabadgelyo la waayo nabigeena calaysay salaatu wasalaam wuxuu yiri al-amn wal iimaan iimaanka waxa ka horeeya waa amniga amni hadii la waayo iimaan jiri waayo marka waxaan ugu baaqaynaa bulshada in nabadgelyada laga shaqeeyo Cabdiraxmaan Axmed Star TV magaalada Ceerigaabo